إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كلنتي وعن كسود هذا برنامج كيني قصص القرآن للأطفال. قصدنا ما أنت وحي كسب سنتهاي أصحاب الجنة قصدي ولشي بيرت لها. هيا نجلس مع كل الإخوان، نتسلى ونتعلم وتذوب الأحزان، نسمع قصة مفيدة على مر الأزمان، نتعلم وننشد مع كل الأطيار. قصدا waxaa la sheegay inay ka dhacday tuulo ku taala Yemen. Tuulada waxaa deganaanin wanaagsan oo Ilaahay beer weyn siiyay. Beertiisa waxa ka soo go'a masaakiinta ay wax ka siin jiray. Wuxuu ahaa nin dhaqan wanaagsan, tuulada aad looga jecel yahay, dadka aanan iska kibirsiinin ayuu ahaa. Laakiin wiilashiisa kuma aynan qanacsaneen dhaqanka waalidkooda oo ah inuu masaakiinta wax taro. Kuma aynan faraxsaneen. wiilashu waxay aabahood ku dhihi jireen, aabbo waxaanaad masaakiinta siinayso naga daa, annagaa u baahan waxay beerteena ka soo go'a, annagaa ku soo rafaadnay, annagaa ka soo shaqaynay, wixii xataa naga soo hara meel ayaan dhiganaynaa, waan kaydsanaynaa, naga daa waxaan masaakiinta aad siinaysid ayay dhihi jireen. aabahood wuxuu ku dhihi jiray, wiilalyahow ilaahay ayaa beerteena siiyey, isagaa noogu nicmeeyey, waxaa habboonna u mahadcelinno. mahadcelintan waxaa ka mid ah inaan masaakiinta wax ka siino. midda kale waxaan yaroon masaakiinta siinayno ilaahay beerta noogu barakeynaya, asagaana noogu xifdinaya beerteena ayuu dhihi jiray. laakiin wiilashu warkaasi kuma aynan qanci jirin, mana aysan rabin warkaasi. muddo kadib oday waa uu dhintay, waxaa beertii dhaxlay wiilashiisii. wiilashii way isku yimaadeen, waxay dhaheen wixii aabaheen uu masaakiinta siin jiray waa inaan joojinaa hadda kadib oo waxba aanan ka siinin beerta masaakiinta ayay isku waafaqeen. waxaa jiray wiilashii wiil la dhashay oo xoogaa ka caqli roonaa, wuxuu ku yidhi nimansaan yaan la yeelin, wixii aabaheen masaakiinta siin jiray yaan la joojinin, aan siino, ilaahay aan uga mahad celinno beertaan iyo nicmadan uuna siiyey ayuu ku yidhi. laakiin waa ay ka diideen, waana ay ka codbateen, asagana wuu iska aamusay. markii dambe waxaa la gaaray xilliga beerta la guran lahaa. maalinka ay isleeyihiin beerta inay soo gurtaan, habeenkii ka horeeyey ayay isku yimaadeen, waxayna ku ballameen in berito xilli alasay ah ay beerta aadaan oo ay soo gurtaan, iskana ilaaliyaan inuu qof maskiina arko ama uu beertooda soo galo. way iska seexdeen. habeenkii iyagoo iska hordaya, qorshana u degan yahay, ayaa ilaahay ciqaabay oo beertooda dab guba u soo diray. beertii waa ay gubatay, waana ay baaba'day oo wax madoobaada ayay noqotay. subaxii markii ay soo kaceen wiilashii ayay bilaabeen inuu midba midka kale u yeero, ayagoo codka aad isugu gaabinaya. way is soo raaceen, ayagoo aad isaga ilaalinaya dadkii inay arkaan, iskuna dayay dadkii intay horhordaan inay beertii ka gaaraan. markay soo dhaqaaqeen oo ay beertii yimaadeen ayay arkeen beertii inay gubatay oo ay baaba'day oo ay madoobaatay. markaas ayay isdhaheen, tanu beertiini ma ahan, waddadii ayaad ka soo dhunteen ee beertiini raadiya. wixii ay beerteeda raadiyaanba waxay ogaadeen inay beertoodii tahay, ilaahna uu ciqaabay oo beertoodii ay gubatay. waxaa la hadlay walaalkood oo shalayta u naseexeeyey, ayaa ku yidhi su'aani shalayta idinma naseexaynin. waxay bilaabeen inay dhexdooda midba midka kale u eedeeyo. kadib markii dambe wax isla wada garteen inay khaldameen oo ay dambaabeen, waxayna bilaabeen inay ilaahay baryaan oo ay dambi dhaaf weydiistaan, kana rajeeyaan inuu beertoodii beer ka fiican ugu bedelo. halkaa ayay qisadii noogu dhammaatay. waxaan ka faa'iidaysanaynaa qisada dhowr arrimood oo ay ka mid tahay in haddii ilaahay qofku uu nicmeeyo ay habboon tahay inuu ilaahay u mahad celiyo, wixii ilaahay uu siiyey masaakiinta iyo dadka u baahan wax ka siiyo. waxaan kaloo ka faa'iidaysanaynaa in qofku wax uu qorsheynayo inaysan waxba ka ahayn markii loo fiiriyo ilaahay wuxuu qorsheynayo wuxuu qadarayo. waxaan kaloo ka faa'iidaysanaynaa qofka haddii khalad uu sameeyo ama dembi inay dhici karto in adduunka dhexdiisa lagu ciqaabo inta aan la gaarin cadaabkii aakhiro. waxaan kaloo ka faa'iidaysanaynaa in qofka intuu gadaal ka shalaan lahaa ay fiican tahay inuu marka hore ka taxadaro, iskana ilaaliyo waxa uu ilaahay necab yahay iyo waxa aanan fiicnayn. waad mahadsantihiin. la socdo sheekooyinka soo socda. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون